munaasabad dhaqaalo loogu aruurinayey dadka Soomaalida ee ka barakacay koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Capetown ee dalka Koonfur Afrika. Munaasabadaasi oo si wada jir ah soo qaban qaabiyeen hay'adda Somali Refugee Aid Agency iyo Passport ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay dawladda South Africa, hay'adaha gargaarka ururada bulshada, baahda saxaafadda, golaha muslimiinta iyo mas'uuliyiin ka socotay ganacsatada waddanka Koonfur Afrika. Munaasabadani ujeedkoodu waa sidii dhaqaale loogu aruurin lahaa dadka abaaruhu ku dhufteen ee ku dhaqan koonfurta Soomaaliya. Ayaa ugu horreyntii waxaa shirkaasi ka hadlay wasiirka iskaashiga caalamiga ee dawladda Koonfur Afrika oo isagu dawladda waddankani uga qayb galay shirka madaxda midowga Afrika ee maalmo ka hor lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. wasiirka ayaa ka hadlay gurmadka dawladda Koonfur Afrika ee u fidisay dadka barakacay Soomaaliya, wuxuuna sheegay in dawladda South Africa hiil iyo hoob la garab taagan tahay dadka iyo dawladda Soomaaliya, isla markaana wuxuu carabka ku dhuftay in dhawaan Soomaaliya u direen hay'ado gargaar, dhaqaatiir iyo saxafiyiin soo tabiya xaaladda saxda ah ee ka jirta waddanka Soomaaliya. Grave sites, food gardens, and a big fence around it. At the entrance of that fence, the face of Solomon Mashlanga. Samafco I'm talking about. Where many of our heroes, many of our leaders were able to go and study, able to go and train, and the way Samafco was put together, the way that buildings were constructed, was in the spirit of solidarity by nation states that understood that suffering in South Africa is also suffering to them. So it was a shame on all of us what happened in 2008. And somehow the people of Somalia has given us a renewed chance to reconnect with the spirit of international solidarity. Not in a political, not in an economic way, but in a humane environment. kadib markii uu kulanka soo gabagaboobay ayaa TV-ga caalamiga Royal waxa kulankaasi ugu warbixiyay gudoomiyaha hay'adda Somali Refugee Aid Agency Mr. Isxaaq Ismaan Roble. xafladii maanta waxay ku saabsaneyd waxa deeq loogu aruurinayay Soomaaliya dadka ku dhibaataysan oo markaas la doonayay inay ka soo kabtaan dhibaatooyinkii soo gaaray draftiga ay ka liftay. xafladda waxaa soo qaban qaabiyay hay'adaha gobolkan Western Cape oo ay ka mid ka yihiin hay'adda Passport, Somali Refugee Aid Agency SORA, Muslim Judicial Council MJC-da. waxaa marti ka ahaa wasiirka xiriirka caalamiga ee dawladda South Africa. wasiirka wuxuu ka soo laabtay shir ka dhacay Addis Ababa maalmo ka hor kaasoo lacag lagu aruurinayay Soomaaliya. wuxuu noogu sharaxay shirka inta wadan ee lacagta ku deeqday iyo qaabka loo kala qaybiyay wadamada AU-da. dadka South Africaanka maanta waxay tuseen in South Africa ay ka walwaleyso Soomaaliya, isla markaasna uu soo qaatay maamo South Africana oo dadkan waayeelada ah isla markaasna ka qaato dawladda lacagta pensionka loo yaqaan. maamadaas oo u keentay xafiiska Gift of Givers oo ah hay'adda joogta Soomaaliya iyo ayadii dhaqaatiirteeda, kuna tiri maanta to carruurta Soomaaliya waxaan siiyo ma hayo, balse dawladda pensionka ay siisay lacagta pensionka ayaan ugu deeqayaa Soomaaliya. aniga bishan aan gajeysnaado sidii aan ku badbaadin lahaa carruur Soomaaliya iyadoo halkaas ugu deeqay. intii uu socday kulankan ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa kulanka madadaalinayay fanaaniin iyo majaajilistayaal ka soo qayb galay kulankaasi. qayb ka yahay shirarka isdaba joog oo maalmihii u dambeysay lagu qabanayay waddanka Koonfur Afrika kuwa oo lagu gargaaraya abaaraha ka jira waddanka Soomaaliya. Cabdillaahi Maxamuud Amiin, Cabdillaahi Qorshe, Royal International TV, Cape Town, South Africa.